garoonka kubada cagta ee waamo waa meesha ay ka soo hana qaadeen xidiga badan oo taariikh ku reebay xulalka ay matalaan. Xulka Jubbada Hoose oo gobolka ugu koobabka badan hanashada tartanka ciyaaraha geeyiga ay degaan Soomaalidu ayaa garoonkan tababar ku sameyn jiray. Garoonka kubada cagta ee waamo waa meesha ay ka soo hana qaadeen xidiga badan oo taariikh ku reebay xulalka ay matalaan. Xulka Jubbada Hoose oo gobolka ugu koobabka badan hanashada tartanka ciyaaraha geeyiga iyo gobolada ay degaan Soomaalidu ayaa garoonka tababar ku sameyn jiray. Waamo waa garoonka kubada cagta ee magaalada Kismaayo, waxa uu beer u ahaa xidiga ay hadda qaarkood matalaan xul iyo kooxo kale. Waxa garoonkan marti ku noqday xul ka yimid dalka Yemen. haddaba goorma ayaa la aasaasay garoonka kubada cagta ee Waamo Stadium? Cabdi Xasan Siyaax Sanja anagu waxaan la dhahaa Jubbaland State todobaatanki iyo koogii waxaan ka qayb galnay aniga Sanja ka qayb galnay inaan garoonka inta fidino daluugtana ka jarno ayaarana ku bilaaway maadaama beekii isbartiiba ay noqotay magaalada gudaheeda. Sanja waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii soo joogay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray garoonka kubada cagta ee Waamo. waxa uu Sanja soo matalay xulka Jubbada Hoose, haatan waa dhiirigeliyay qaybna ka odayaasha weli dhankooda ka qaata horumarka isboortiska. maanta waxa ka soo wareegay waa garan kartiin at least nus qarni marka waxa weeye aad iyo aad baan maanta aan ku faraxsanahay inaan ka hadlo idaacadda. anaga Jubbaland State waaga hore waxaan la jiray Jubbada Hoose ka bacdin state ayaa soo keenay, laakiin ciyaarihii ugu horeeyay Soomaaliya dadka qaaday anaga waaye waana 72 koobkii ugu horeeyay la dhigo mataqaanaa Soomaaliya gobolada. dad badan oo yaqaan waa jiraan generation dambena maantay waa yaqaanaan maadaama aan dalka ka bixin dalka aan deganahay Kismaayina aan joogay. maantana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan garoonka Waamo Stadium dhex taagnahay. 8 koob horaan soo qaadnay 2016 kii gobolada la qabanaa la yiri waxaan nalaga badiyay rigoore. sanadka dambena waan soo qaadnay marka 8 marka lagu daro 9 waay. hadda anaga waxaan ku rajaweynaa inaan 10 ka dhigno sanadkan soo socdo. yani anagoo nool anaga waxaan naga go'an hooyadii isboortiga nahay, hooyadii dalka nahay. waxna waa dalka marka ku dhahayo gobolka Jubbada Hoose cid kubada cagta macal banaadir kala hadli kartaa malahan. gobolada anaga haysan magaalada madaxda waa ogolahay, laakiin kubada isku masqajaamo kubada ehelkeeda anaga way xeeb dheer aan leenahay. kubada lagu dheelo ilmahan maanta dhex taaganayna waa ilmi awoow aan u ahay, ma aan ilmi aniga aan mataqaan dhalay kuwa waa kuwa awoow aan u ahay. waxaan nasiib u yeeshay anoo dalka ka bixin inaan soo barbaariyo kaba u soo geliyo si loo dheelo baro. maantana waxa arkaysiin inay roog dhex taagayiin. waa ku faraxsanahay Jubbaland oo noo horkacisay mataqaanaa isboortiga la gaarsiisay inaan ku dheelno garoon roog ah. aan ku faraxsanahay 8 team oo Serie A, 8 team Serie B ah iyo 8 team oo Serie C ah. يعني garoonkii wali Jubbaland State waxaan raadinaynaa garoon kale weyn oo aan ugu darno garoonkaasi haddii Ilaahay gaarsiiyo garoon weyn oo stadium ah oo mudane Axmed Maxamed Islaam lagu qoray. يعني kubadda ninkii hore ku cinay waa jecelnahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna kubadda cagta Jubbaland. يعني siyaasadda kuma jirto kubadda cagta siyaasad maan kubadda cagta ehelkeeda nahay hana loo daayo waxaan iska dawareeganaa gobolada anaga shaqo kuma liin. anaga waxaan diyaar u nahay kii tobnaad inaan soo gaarno. aad iyo aad u mahadsantiin. waana aad iyo ciyaareed kulankii ugu adkaa xilligii 2016 ilaa 2017 ayaa dhex maray kooxaha kubadda cagta dawladda hoose iyo naadiga Kasiima. horyaalku waxa waa mid aad u xiiso badan, kooxuhuna waa ay wada dagaalamayeen. kulanka ayaa ka dhignaa kulanka ay natiijadiisu bedelayso kala sareynta horyaalka kooxaha kubadda cagta ee Jubbaland. kulankan oo dhex maray labada naadi ayaana qaybtiisa hore lagu kala maray 2-0 oo dawladda hoose ay ku hogaaminayso. kadib markii dib la isugu soo laabtay ay naadiga kubadda cagta ee Kasiima la timid 1 gool, waxaana ugu dambeyn ciyaartu ay ku dhamaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose.
kulankaas ayaa dhacay 30 Abriil 2016 waxaana kulankaasi noqday kulankii ugu xiisaha badnaa xilli ciyaareedkii 2012-2016 kulankaas ayaa noqday kulankii ugu xiisaha badnaa xilli ciyaareedkii 2016-2017 xiriirka kubadda cagta ayaana dadaalo muujinayay waxaa ku muuqanaya nidaam qurxoon oo laga dayan karo caalamka ku hormaray dhanka kubadda cagta waxaana markaasi muuqanaysa sida quruxda badan ay u soo galayaan garoonka marka ay soo galayaan gudaha garoonka Jubbaland waa meel hormuud u ah guud ahaan Soomaaliya kubadda cagta 31 Diseembar 2016 maalin kadib markii la ciyaaray kulankii kooxaha kubadda cagta dawladda hoose iyo naadiga Kasiima ay ahayd markii la dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee Waamo haddaba waxaa dhagax dhigaasi aad u farxad geliyay bahda oo aad ugu taamayay inay ku ciyaaraan cawska macmalka ah isla maalinkaas ayaa Agab Sports la guddoonsiiyay kooxaha heerka labaad ee kubadda cagta Jubbaland garoonka haatan waxa uu martigelin karaa kulamo waaweyn walow uusan si qurux badan u dayactirnayn hayeeshee garoonka kubadda cagta ee Waamo wali waxa uu muuqdaa mid u baahan in la dayactiro aan dib ugu noqono 3 sano ka hor sidoo waa garoonka kubadda cagta ee Waamo 15 Agoosto 2017 ayaa la bilaabay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Waamo garoonka ayay ka soo baxeen xidigihii qabsaday kubadda cagta ee dalka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa ugu guulaha badan ayaa loo bedelay caws cagaaran si uu markaasi dunida inteeda kale loo tartamo waana garoon mudan in isbedel lagu sameeyo maadaama uu soo saaray kacaan markii la qabsaday kubadda cagta ee dalka intii uu dhismihii socday waxay indhuhu qabanayeen guud ahaan goobihii garoonka oo la burburiyay waxaa lagu bilaabay dhigidda cawska cagaaran dhisida taraboonada iyo guud ahaan dhismaha qaybaha kala duwan oo ugu horeysay qaybta VIP-da Axmed Yuusuf Mubarak 12 Oktoobar 2017 markii la gabagabeeyay dhismaha hoyga ciyaaraha Jubbaland ee garoonka Waamo garoonka kubadda cagta ee Waamo ayaa la qorsheeyay in sanadkaas uu martigeliyo tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo ahaa tartan sanadle ah waxaana ay bahda sportska ka dhan ahaayeen xiisaha qabashada tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir cilad farsamo awgiis ayuuna u baaqday oo laguma qaban magaalada Kismaayo mana dhicin tartankii maamul goboleedyada sanadkii 2017 iyo 2018 midna intaas wixii ka dambeeyay garoonka kubadda cagta ee Waamo waxaa lagu qaban jiray horyaalada kala duwan ee Jubbaland sanadkan gudihiisa madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa booqday garoonka iyo qaabka ay uga socdaan ciyaaraha Jubbaland madaxweynaha ayaana gacan qaaday taageerayaashii kala duwanaa ee u soo daawasho tagay garoonka Waamo waxaana maatinka madaxweynaha ka hadlay qaybo kamid ah taageerayaasha ciyaarta daawanayay oo aad ugu riyaaqsanaa booqashada uu soo booqday mudane Axmed Maxamed Islaam maanta waxaa noo yimid madaxweynaha Jubbaland qaaliga ah waana fursad qaali ah oo maanta garoonka Waamo ka socoto ciyaar kubad cag ay wada dheeli doonaan kooxda guulwada iyo kooxda loo yaqaan Heegan marka waxaan leenahay waa fursad hadaan xiriir kubadda cagta qaasatan iyo shacabka Soomaaliyeed wali waxaa ka socda tartamada kala duwan ee Jubbaland waliba kuwooda ugu xiisaha badan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintii aan ka diyaarinay garoonka kubadda cagta ee Waamo waxaan markasta iltogan ku hayn doonaa sportska Soomaaliya gaar ahaan midka Jubbaland